Filimku wuxuu ku bilaabanayaa Bill oo jooga eelaboorka si uu u raaco diyaaradda. Waxaana u yimaada Tom oo ka codsada inuu u shido sigaarka, kadibna wuxuu u sheegaa inuu u socdo Amsterdam. Kadib gudaha diyaaradda, Bill wuxuu soo galaa musqusha, wuxuuna halkaas kula kulmaa Hammond. Waxaana ogaanaynaa in Bill uu yahay askari ku qoran diyaaradda si uu ula socdo badqabka diyaaradda. Kadib markii uu soo laabtay, waxaan arkaynaa Jane oo ka codsanaysa Zack oo fadhiya dhinaca Bill inuu uga kaco kursiga daaqadda. Inkastoo aanu ku faraxsanayn Zack oo uga kacaa, kadibna Jane waxay wada sheekaystaan Bill. Kadib Bill wuxuu soo kacaa dhanka musqusha. Kadib markuu soo laabtay Bill waxaa fariin u soo diray sarkaalkii ka sarreeyay, wuxuuna u sheegaa in xaalku degan yahay. Isla mar ahaantaana waxaa fariin u soo diray qof aan la garanayn, wuxuuna Bill u sheegaa inuu og yahay inuu yahay sarkaal ciidan oo ku qoran diyaaradda. Billna wuu la yaabaa sida uu ku ogaaday, maadaama ay sir ahayd. Waxa kale oo uu sheegaa in musqusha uu ka cabiyay sigaar. Kadib Bill wuxuu ogaadaa in qofkani uu ku dhex jiro rakaabka, wuxuuna bilaabaa in hareerihiisa si taxaddar leh u eego, balse uu ka waayo cid uu ka shakiyo. Kadib Bill markii uu soo kacay waxaa fariin u soo dira qofkii aan la aqoon, wuxuuna weydiistaa $150 milyan, haddii kalese uu dhiman doono mid ka mid ah rakaabka 20 daqiiqaba. Kadib Bill waxay indhihiisa ku dhacaan Hammond oo isticmaalaya taleefan, wuuna ka shakiyaa, wuxuuna wala baxaa dhinac ka mid ah diyaaradda, wuxuuna bilaabaa inuu hubiyo moobilkiisa, balse ma ahan isaga. Kadibna wuxuu la wadaagaa arrinka, kadibna wuxuu u tagaa duuliyaha wuxuuna u sheegaa sida wax u jiraan, wuxuuna ka codsadaa inuu dejiyo diyaaradda, balse duuliyuhu wuxuu sheegaa inaanay suuragal ahayn maadaama ay badda dusheeda dul marayaan. Kadibna wuxuu codsadaa inuu baaro CCTV-ga, wuxuuna Nancy iyo Jane ka codsadaa inay la socdaan rakaabka, taleefankiisa isticmaalaya in badan. Kadib wuxuu kaamirooyinka ka arkaa Hammond oo u socda dhanka musqusha, wuuna ka daba tagaa, wuxuuna weydiiyaa sababta uu u sameynayo, wuxuuna ugu jawaabaa inuu u baahan yahay lacagta. Halkaasna waxaa ku dhex mara dagaal dheer. Ugu dambeyn wuxuu ku guuleystaa inuu dilo. Kadib markuu soo baxay waxaa fariin u soo diray qofkii aan la garanayn, wuxuuna ugu mahadceliyaa inuu qabtay shaqadiisii maadaama uu dilay qof ka mid ah rakaabka inta aanay dhammaan 20 daqiiqo. Markii ku soo laabtay duuliyuhu wuxuu u sheegaa in la ogaaday qofka la tuhmayo uuna yahay isaga, wuxuuna ka qaadaa qoriga iyo ID card-ka. Kadib Jane waxay hagaajisaa moobilkii Hammond, wuxuuna arkaa fariimo uu u diray qof kale oo ku saabsan waxa ku jira boorsadiisa. Isla markiina wuxuu soo dhaqaaqaa dhanka boorsada, wuxuuna bilaabaa inuu furo, wuxuuna ku arkaa wax cad oo ku jira boorsada. Markii uu jeekimay wuxuu ogaadaa inay tahay daroogo. Halkaasna waxaan ku ogaanaynaa in Hammond uga jeeda lacagta daroogada, markii uu lahaa waxaan u baahanahay lacagta, si aan uga jeedin lacagtii qofkii afduubaha ugu dalbaday. Halka Nancy-na ay arkayso meydka Hammond, waxayna isku daydaa inay baxdo, balse waxaa qabta Bill oo u sheega in xaalka rakaabka dejiso. Kadibna wuxuu bilaabaa in rakaabka uu ka baaro afduubaha, wuxuuna baaraa Dr. Fahim, Charles iyo sidoo kale askari Riley. Isla mar ahaantan wuxuu ka shakiyaa Tom maadaama aanu diyaaraddu ku waajahnayn Amsterdam, wuxuuna bilaabaa inuu qabto. Tomna wuxuu u sheegaa in qof ka mid ah rakaabka uu ka codsaday inuu weydiiyo halka uu socdo. Kadib Bill wuxuu soo kaxayaa dhanka rakaabka si uu u tuso qofka uu ka codsaday. Kadibna qof aanan la tusayn baa riixaya badhan, taas oo keenaysa in rakaabka aan suunka u xirnayn ay kor u kacaan. Kadib markii xaaladdu degtay, Bill wuxuu ogaadaa in dhibanaha labaad aanu ka mid ahayn rakaabka, balse uu yahay labada duuliye mid ka mid ah. Markii uu soo kacay dhanka duuliyayaasha wuxuu arkaa in duuliyaha oo dhaawacan, halka Dr. Fahim uu isku dayo inuu badbaadiyo, nasiib darrose wuu ku guuldareystaa. Kadib dhimashada dhibanaha labaad, Bill wuxuu 20 daqiiqo ku seef garaystaa saacadiisa. Kadib Jane waxay u sheegtaa Bill in Zack uu yahay barnaamij sameeye, waxayna ka codsadaan inuu ka caawiyo sidii u soo qaban lahaayeen afduubaha. Kadib wuxuu u sheegaa in malware-ku awood u leeyahay in taleefanka afduubuhu uu wacmo, taasoo ay ku ogaan karaan afduubaha. Kadib Bill wuxuu rakaabka iskugu keenaa hal meel, wuxuuna ka codsadaa inay gacmaha kor u taagaan, isagoona sugaya inuu soo wacmo taleefanka afduubaha, wuxuuna ka soo dhacaa jeebadda Charles. Kadib Bill si degdeg ah buu u qabtaa, halka Charlesna uu sheegayo in taleefanka aanu isagu lahayn. Isla mar ahaantaana wuxuu afka ka soo daayaa wax cad, iyadoo Dr. Fahimna isku dayo inuu caawiyo, nasiib xumase halka uu ku dhimanayo. Dhicitaanka arrinka kadib, Bill wuxuu u soo baxaa dhanka musqusha, wuxuuna bilaabaa inuu cabo sigaar. Si lama filaana wuxuu u arkaa in qiiqa sigaarka uu meel ka baxayo, wuuna hubiyaa, wuxuuna halkaas ku arkaa tuumbo yar oo u maleynayo in lagu sameeyay duuliyaha iyo sidoo kale Charles. wuxuuna ka shakiyaa Jane maadaama ay agtiisa soo fadhiisatay,
waxayna u sheegtaa inay qabto dhibaato dhanka wadnaha ah ayna doonaysay inay fariisato dhanka daaqadda. Kadibna waxay helaan moobilkii afduuba, balse furitaankaas waxay keentaa inuu daarmo bamka, iyadoona aan arkayno in warbaahintu ay baahinayso in Bill uu yahay afduubaha diyaaradda, halka rakaabka diyaaradduna ay ogaanayaan warkaas. Kadib Bill wuxuu soo kacay dhanka iyo boorsadii Hammond, maadaama boorsooyinka kale si adag loo soo baaray markii uu bamka, wuxuuna daroogada hoosteeda ku arkaa bamka. Kadib markiiba waxaa soo weerara rakaabka diyaaradda, wayna qabtaan, laakiinse waxaa kasoo horjeesada Tom oo ku amra inay sii daayaan. Kadibna Bill wuxuu ogeysiiyaa rakaabka arrinka bamka, wuxuuna geeyaa qaybta dambe ee diyaaradda, iyagoona ku dadiyay boorsooyinkooda si saameynta qaraxa loo yareeyo. Daqiiqado kadib, Bill wuxuu arkaa mid ka mid ah rakaabka oo duubaya. Markii uu ka qaaday moobilka, wuxuu arkaa muuqaalo badan oo uu duubay, uuna ka mid yahay markii uu waday Tom uu ku dullacayo Charles, moobilkana sidaas ugu geliyay jeebadiisa, halka Tomna uu garwaaqsaday in la ogaaday. Wuxuu bilaabaa inuu qabto Riley, uuna ku qabto bastooladiisa, balse waa rasaas la'aan. Rileyna wuxuu ku guuleystaa inuu iska fujiyo, waxaana u dhaqaaqaa dhanka boorsadiisa oo ay ku jiraan rasaasta. Laakiinse waxaa rasaasta hayay Zack, waxaana dhex mara dagaal. Zackna wuxuu ku guuleystaa inuu dilo Riley. Kadib afduubayaasha diyaaradda Zack iyo Tom waxay la wareegaan diyaaradda, iyadoo halkaas ku ogaanayno in labadooda ay ka tirsanayeen ciidamada Mareykanka, ayna ka xun yihiin dagaalada uu ka wada caalamka. Zack wuxuu soo xasuusiyaa Tom inay diyaaradda uga boodaan parachute, balse Tom wuu diidaa. Isla waqtigaas waxaa si kadis ah diyaaradda hoos u celiya duuliyaha, halkaasna waxaa ka bilaabma isdhexyaac, iyadoona Bill uu ka faa'iideysanayo. Wuxuuna qaataa qoriga, wuxuuna toogtaa Tom. Kadibna waxay iswajahaan Zack, wuxuuna ku tuuraa gadaasha dambe ee diyaaradda, halkaasna waxaa kula qarxda bamka. Kadibna duuliyuhu wuxuu bilaabaa inuu soo dejiyo diyaaradda, halka Billna uu si dirqi ah ku badbaadinayo gabadh yar. Ugu dambeyn, diyaaraddu si nabad ah ay kusoo degayso. Filimkan wuxuu kusoo dhammaanayaa iyadoo Jane iyo Bill uu xiriirkoodu halkaas ka bilaabanayo.